kulankan oo ahaa mid iskugu jira qada sharaf iyo taageero ayaa ka qabsoomay beerta 22aad ee duleedka magaalada Garowe waxaana lagu taageerayay gudoomiyaha ganacsatada bulshada deegaanada Koonfur Galbeed ee gobolka Nugaal ahna musharax gole deegaan degmada Garowe Axmed Maxamed Sheekh Aadan waxaana ka soo qayb galay malaaqyo dhalinyaro haween xildhibaano hore ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa kulanka ka hadlay musharax Axmed Maxamed Sheekh Aadan oo ka sharaxan urur siyaasadeedka ka ayaa faahfaahiyay ujeedka kulankaas barnaamijkan meesha mas'aladan aanu sameynay waxay ka turjumaysaa in maartay wixii hadda wanaaga aan socdo oo dimuqraadiyadda laga hadlo waxaan kala rabnaa inaanu ilaalino odayaasha iyo xaafadaha iyo dhalinyarada iyo ganacsatada aan ku baraarujino sidii loo heli lahaa matalaadaas oo u taaganahay anigoo Axmed Maxamed Sheekh Aadan oo ay u garab istaagtaan afradana ku turjumaysaa diina aniguna waxa aaminsanahay inaan ahay qofka lagu aamini lahaa hadii Ilaahay ku idmaayo marka waxaan rajaynayaa in halkaan qof kasta soo istaaga wax kasta oo maartay wanaag iyo horumar ka hadlo saan rajaynayo ka hadlo midnimada ka hadlo horumarka ka hadlo amniga iyo wanaaga magaalada ka jiro ka hadlo sidii horumarka loo sii bilaarin lahaa ka hadlo anoo gacmaha haysano marka walaalayaal soo dhawaada sidoo kalena musharaxiin xisbiyo kale ka tirtamayay ayaa si buuxda u taageeray iyagoona u tanaasulay Axmed Maxamed Sheekh Aadan way xildhibaanimada in ku tanaasulay oo mabda'ayna lahaay siyaasad wali ma ku ban siyaasadda ka jara laakiin se way baa xildhibaanimada in tanaasulay walaalkayna garabshaynaga hal xildhibaan ha saar maadaama uu digli mirafla una hal xildhibaan ha saaran way ba aragnay boosaas way ba aragnay gaalkacay waa meel walba aragnay intii wada galnimo wada jira walka gooyaan leeri reebano may siin lahaa Axmed garab surugnoy digli miraflow lankaan ha saarnoy xildhibaan maanta waxa meesha ugu joognaa midnimo hadaan midnimo la helin waxba helimeyn tafaraar waxba tarimeeyo muhiimada ugu muhiimsan waxaan rabnaa inaan garab istaagno walaalkeen Axmed haddaan helnana waxaan helaynaa maayar oo degmada noo soo baxa waxaan rabnaa inaan deesla dhisno maayarkeeni iyo xildhibaankeeni musharax maanta wax uma baahan amaan waxaan rabnaa inaan farteena kaga faa'iideysano aan soo saarno nuugul maalinta doorashada 23 bari ugu horeyso waa iska soo bax aan kulli adeerkaax baan ku beernay waxa rabaa inaan si mug leh aan isku muujino aan soo baxno oo meeshaan aan ka arko inaan awood leenahay markaasaan xilwaankeena soo bixi karaa rajaynaynaa ururka ka miisaanka aan la nin inuu ka muuqdo 23 bisha soo socota oo aan aad miisaan urur badan iyo fircoon qurux badan aan ku soo kordhino insha Allah waxaan dadka reer Koonfur Galbeed iyo digil iyo midifle ugu dardaarmayaa inay garab istaagaan Axmed garbaha qabtaan dhinacyada qabtaan garbaha uu ku duulay Axmed waa digil iyo midifle reer Koonfur Galbeed waxaan rajaynayaa reer Koonfur Galbeed iyo digil iyo midifle Axmed inay gacmaha qabataan dhaqaalaha la garab istaagtaan codkana la garab istaagtaan maalka iyo cududda inta la garab istaagtaan Axmed waa nin dhalinyaro fircoon aqoon-yahana bulshada iyo dadka inta wax ku soo kordhinaya waxaan reer Koonfur Galbeed ka rajaynaynaa codka iyo miisaanka ay Nugaal ku dhexleeyeen waa dareemaynaa in codka iyo miisaanka ay leeyihiin uu ka dhex muuqdo mas'uuliyiinta kale munaasabada ka hadashay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la taageero musharax Axmed Maxamed Sheekh Aadan iyagoona garab istaag ka codsaday guud ahaan bulshada reer Puntland qaybaha samafalka isagoo aan ahayn musharax iyo ka dhaxmuuday xafladaha ama qaybaha bulshada iyo samafalka haddana haddii uu ku guulaysto waxaan rajaynayaa xildhibaanka golaha deegaanka inuu sii kordhin doono caqabadkiisa iyo matalaadiisa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu guulaysto waxaan looga baahan yahay inaanu garab istaagno Axmed waxaan looga baahan yahay inaan cudud iyo af iyo adin iyo dhaqaale intaba aan ku garab istaagno Axmed waa samafale maanta hadduu inii soo baxo waxa weeye waa nin meel inigaasiin kara oo aad leedihiin war xildhibaan bay noo soo baxay war xildhibaan baynu wadanaa laakiin haddaydan maanta Axmed aydan soo saarsan hadda waxa weeye waad iska haraysaan waad ogtiin dowladda Puntland Axmed iyo ninka la yiraahdo Geedi hadday maanta soo wada baxaan oo xitaa aynu Geedi soo saarno Axmedna waa soo baxaya mayba mahad banaan jeediyay gudoomiyaha ganacsatada ahana musharaxa xildhibaan golaha deegaan yani gobolka Nugaal gaar ahaan degmada Garowe eed baan mahasanta insha Allah way baakin rajay guul wanaagsan sharaf leh
hambalyo gadoomiye kaliya waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo wixii halkan ka dhacay sacrifice ahaa ama tanaasul ahaa baan horta rabaa in aan marka hore bogaadiyo walaalkay Ibrahim Aaran iyo Faadumo walaashay wixii ay halkan ka sameeyeen may kala fadeen intuu kuma hanaga faday madaxweynaha sharafta badan leh madaxweyne Saciid Abdullaahi Deni mudane madaxweyne lanki kaliya uu nin sharahan lanki may waxa ninka buugadiyo lanki ninka sabar badanayo lanki ninka dulqaad badanayo lanki reer Koonfur Galbeed iyo reer Puntland dhamaantii oo shaqeeyo lan samafaleew lan gurmadjay aasamada garow meel badan lagu kaaragiyo lan wax qabadjay garsan ma marka walilah libiye geeweri ma garsan lan saaseen in sharahan wadana madaxweyne may ku codsadaan in lan kaas hasaart gabagabadiina malaaqyadii iyo salaadiintii ka soo qayb gashay madasha ayaa taageero buuxda u muujiyay musharax xildhibaan Axmed Maxamed Sheekh Aadan geeka meeray galku hadal badan ma ka baahan walaalkeen meeray musharax Axmed Maxamed Sheekh Aadan meeray ciidanka mahadnagaana dhiirigelintiisa suubi alxamdulillah ilaahay adii mahad shukr leh ku baad ma baan mahadnagay gadoomiyaha arandoonka gabangaabi xafladan ha gabangaabi musharaxan xildhibaan golo deegaanka waan mahadnagay waxaan u hambalyeeynayaa xildhibaanka xafladda dhigtay waxaan u rajaynayaa insha Allah biidinlaahi kariim guul inuu ku soo baxo xisbiga u tartamayo ee jagadu raadinayo markuu soo baxan wili waxaan leenahay Allah kuga asturo hadana mar kale dadka kaaxa ku soo biiray inteeda badan waa ka haysanahay oo aad bay iyagu soo dhaweynayna waa mahadsantiin baan leenahay runtii nasiib aan aragahay runtii xafladan oo Axmed musharaxnimadiisa golaha deegaanka ka muujiyo mayba ku qayb galay nasiibna weel dhaday runtii isimada Puntland afarta gobolon ku weyn isimadiyo roogan aan magaalada Suldaan Maxamed Gudlawaay gobolka Bari baan ka imid waxa jooga ugaas Ibrahim Maxamed iyo Malaaq Jinibes ciidani waxaan ka codsanaynaa inuu anagu na dardargeliyo xildhibaanada noo dardargeliyo oo meel walba geed dheer iyo geed gaaban inaan anagu cadkeen aan helno in badan baan u samrayn kursiga waxa weeye cidna kuma darsoomayso in badan baan tiraadeen laakiin saacadan waxaan ka doonaynaa inaad noola hiilisaan gudoomiyaha xaafadaha noo hiiliyaan xildhibaanada noo hiiliyaan wasiirada ay noo hiiliyaan digli marfla kan kor joogiyo kan hoos joogaba inay noo hiiliyaan cadkeen aan anagu Soomaali baan السلام عليكم ورحمة بقول لك ما اللي عندك إني دقيقة مرفلاقة قبل كنوقال إني يوم متكئين إيو ميلكاست دقيقة مرفلاقة قبل لان كنولين إني من ماذا إن لك وضع لك شقة إن لك مضو هرتم هي مادة انتاسو لصوت عن اللوان دي هاي ملاك هاي أو اللوان آرن إيو اللوان فاطمة تنزلنا ما إن تنزلنا ولا الشيخ أحمد إني قربنا نقدان إني سجول يسلو taageerayaashiyo iyo yoba may ku mid naqdeena xisbiga ka saas dartii eedayadan ka mahadnagaana mahadsantiin kulankii kan horta walahan Israa'iil dhankan leek wal nooy digri marflamanimada iyo neeto ilaahay kiin roonya wada jirshay ka shaqeyneen wala ilaahay kiin gargaar amadnami wala kale eedayadan mahadsantiin hafladii iyo wanaaga iyo hafladii iyo sharaftii ilaan abaabuli ilaan agaasimi eedayadan ka mahadsantiin shirkeenin hiriyo salaam